بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal sida aad horeba u maqasheen, waxaynu caawa u fadhinaa in sha allahu tacaala xafladda furitaanka qayb cusub oo lagu baran doono qiraa'aadka qur-aanka kariimka oo ay noo soo kordhisay mu'asasada daarul iimaan oo aynu caawa marti u nahay. waa habeen arbaco ah oo taariikhda islaamku ay tahay 18 bisha dilqicda sanadka 1444 hijriga oo ku beegan 6 bisha lixaad ee 2023. ugu horeyn waxaynu u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala, allah inoo nicmeeyey nicamka aadka u faraha badan ee aynaan soo koobi karayn. wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha. nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu nicmeeyeyna waxaa ka mid a nicmadan aynu caawa u fadhino, oo in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu goobteenni inoogu keenay culimadii ugu waaweyneyd ee qiraa'aadka bixin jirtay mid ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadnaqiisa kadib waxaan u mahadnaqayaa culimada guud ahaan iyo wasiirka gaar ahaan oo culimadana ka mid ah, wasiirkeennii diintii awqaafta sheekh albani oo isaguna inala fadhiya. waxaa sidaas oo kale aan u mahadnaqayaa odayaasha xaafadda oo iyaguna qayb inagala ah xafladeennani, iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha majliskeenna barakaysan ee aynu ku daahfuri doono in sha allahu tacaala darsiga qiraa'aadka ah ee laynoo bilaabi doono. ugu horeyn walaalayaal, waxaynu ku furfuran doonaa xafladeenna aayaad qur-aanka kariimka ka mid ah oo aynu ka dhagaysan doono macallin ka mid a macallimiinta mu'asasada wax ka dhigta, gaar ahaan ardayda weliba khawaasta ee mumayisiinta ah macallimiinta wax u dhigta ka mid ah. waxaan u yeedhi doonaa sheekh alqaari mukhtaar xasan nuur, falyatafadal mashkuuran wama'juuran biidn illah. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم وأنا ما أديش كلي برنامج كأنه فردنا كمدة وحكوا أخري رواية سوسي عن أبي عمرو إن شاء الله تعالى وأنا قراءات كأنه عاود ده فردنا كمديهين إلهي جل وعلا هبرك يا إننا إلهي سبحانه وتعالى أنت وحقوق الله نجيها haddii walaalayaal aynu qur-aanka iyo dhegaysigiisaasi aynu ku yar raaxaysanay aynu in yar ka soo baxno waxa biidni illaahi tacaala haddana aan soo dhoweyn doonaa walaal ka mida walaalaha iyo xubnaha mu'asasada daarul iimaan oo warbixin kooban insha allahu tacaala inaga siin doona mu'asasada iyo waxqabadkeeda iyo barnaamijyada ay hiigsanayso iyo bal waxa cusub in sha allahu tacaala ay caawa inoo hayso waxaan soo dhoweyn doonaa الشيخ النعمان عبد الرحمن أحمد سوى warbixin kooban in sha allahu tacaala uu inoo siiyaa soo dhowaado العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد إلهي سبحانه وتعالى أولا وآخرا أنو مهدنقينا مهدنق على سوكو بكريم
الله منعمك inoogu nicmeeyey nicam fara badan oo aynu haysanno فالحمد لله أولا وآخرا ثانيا وأرمى هنقينا مسؤولين تا هي مشايخ ذا هي قراء ذا نقل ساقين قلي كلن كان دا فرقة طلبة العلم قال رجيا دمر يد عادة هي مرتشرف ككله هيكل الدوان قيبت وارباهين تا حلينا هذه أياد ما تنتهي بارك الله فيك ولا ليالسين وقنا هي مؤسسة دار الإيمان وأي نوفر إنه نشاطات كذا يهرمر ذا شوكتا دا كنت الله بسطي مد كم دا عاوين ندافرنا يضاك ويوم بدن وكوري نصنا كلا نوسو دافرناي وحي كم تهاي meelaha ugu caansan ee waddankeena Soomaaliland u adeega koryeelida kitaabka Alle iyo gargaaridda sunnada rasuulka calayhi salaatu wassalaam iyo nashrinteeda iyo fidinteeda iyo soo saaridda ummad markaa ku suntan akhlaaq iyo aqoon iyo dhammaan markaas waxa weeyaan u adeegidda bulshadeena baahida weyn u qabta culuum shariica inay markaa ay u hirgelisay baahiyaha markaas waxa weeyaan ay u baahan yihiin dhammaanteed mu'asasatu daarul iimaan way 20 jirsatay ama sanadka ayaa u koob iyo 20 ah inta khayrka iyo wanaagga aynu ku barannay markaas waxa weeyaan uu ka socday sanadba sanadka ka dambeeyana ay sii hormarinaysay dacwadda iyo fidinta markaa diinta iyo koryeelideedaba iyo soo saarista ummad ku suntan ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa oo xufaada oo ducaada oo khudaba ah dad fara badanna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku anfacay waa mu'asasad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkiisa iyo kaalmadiisa kadibna ay u kaceen dad ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa markaas waxa weeyaan inay dadaal ay geliyaan oo juhdi markaa ay geliyaan waqtigooda markaas waxa weeyaan ku bixiyaa ina ka go'an tahay taasina waxay ka muuqanaysaa horumarka ay samaysay mu'asasatu daarul iimaan waxay ka bilaabantay madarasad waxay isku beddeshay madaaris waxay ku soo biray oo soo kordhisay macaahid waxay soo kordhisay qaybaha markaas waxa weeyaan rawdada ee barbaarinta waxaa hoos yimaada qaybta markaa dacawiga ah oo masaajido iyo markaas waxa weeyaan maraakiis kale oo markaas waxa weeyaan leh waxay isku beddeshay mu'asasa sida xafladii ugu dambeysay uu ku dhawaaqay wasiirkeena diinta iyo awqaafta Sheekh Albani dadaalka iyo juhdigaasi waxa uu ku yimiday dadka ducaada iyo maamulayaasha iyo mas'uuliyiinta ugu horeeyo شيخنا الشيخ الفاضل أحمد عبد السلام آدم أحمدي أي مركا إنتا أي مؤسسة أي جرتي أي صوب حنين عافظة بدن با أي كهر كشي مؤسسة دار الإيمان وما أنت مركا سوى حويا عن كو انتفاع دي وكفا إذا إلا شان مركا قيبات أي كوبان تهي شان قوبات والرئيس يو وين xaafaddana aynu degannahay 3 qaybood ayaa ka furan sheedaha qayb weyn baa ka furan boqol jirada qayb markaas waxa weeye weyn oo iminka dib u dhis loo sameeyay oo 3 dabaqa oo dhismaheedu u dhow yahay ayaa markaas waxa weeyaan ku taala way noo muuqanaysaa horumarka ay ku tallaabsatay mu'asasadu iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu u garab galay markay u qumtay waqtigeedii ay siisay u kaalmaynta iyo kor u qaadidda quraanka markaas waxa weeyaan kariimka ah
mu'asasadu waa mu'asaso markaa mutakaamila oo dhammaan baahiyihii markaas waxa weeyaan diinta kafaysay. waxay leedahay qaybtii markaa taxfiidka qur-aanka kariimka ah ee qur-aanka laga xifdiyayey. waxay leedahay qaybtii rawdada ee barbaarinta markaa carruurta iyo ubadka yaryar. waxay leedahay qaybtii macadka ee culuuma shariica lagu baranayey. waxaynu caawa u fadhinaa inaynu daah furno qaybtii markaas waxa weeyaan qiraa'aadka oo mu'asasada ay noo soo kordhisay. dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigan u faray cilmu lqiraa'aadka iyo culuumu lqur'aan kuwa ugu caansan ugu nafciga badanna ay noo doortay oo ay noo keentay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariye. waxay leedahay qaybta xifdulmutuun, xifdinta markaas waxa weeyaan mutuunta. waxaa mumayizaadka waaweyn ee ay ku tallaabsatay mu'asasada markaa ka mid ah inay markaa inoo soo kordhisay oo ay ka mid tahay mu'asasada qayb loogu talagalay itqaanu xifd alqur'aan, sugidda markaasi waxa weeyaan qur-aanka xifdintiisa oo loo hirgeliyey ardayda markaa qur-aanka dhammaystirta in sida markaa xifdigoodii qawi uu sii noqda iyo itqaankoodu inay markaa ay ugu dareen galaas tiradiisuna ay kooban tahay. macallimiinta markaas waxa weeyaan ka howlgalayaana ay tayo leeyihiin oo ay ka mid yihiin macallimiinta qur-aanka inoo akhriyayey ee qiraa'aadka kala duwan aqoonta u leh, kana mid ah hamaradii iyo midhihii ay soo saartay mu'asasatu daaruliimaan. iminkana dib ay ugu intifaacday oo ay ardaydu ka helaan subcis fara badan iyo qur-aanka ay soo barteen inay muraajaco waafiya ay u helaan. oo ay suurtagal tahay maalintii in 5 jis 3 jis iyo markaas waxa weeyaan wax ka badan ay muraajacayn karaan. waqti badanna loo suurtageliyey, tiradoodiina la koobay si markaa waqti badan oo waafiya ay u helaan. mu'asasatu daaruliimaan waxay ku suntan tahay, waynu ognahay in ay ka howlgalaan macallimiin iyo maamulayaal aqoonteeda iyo khibraddeeda iyo waayo aragnimadeeda markaas waxa weeyaan leh qaybaheeda kala duwan ee ay ka kooban tahay mu'asasadu markaas waxa weeyaan ay ka kooban tahay. hoggaankana uu haya juhdiga ugu badanna markaas waxa weeyaan uu ku bixiyey, aadna uga agdhow yahay mas-uulka guud ee mu'asasadana uu yahay sheekheena sheekh axmediid xafidahu allahu waracaahu fi dunya waalaakhira. waxaa farxad iyo wanaag inoo ah ummadda reer somalilan na aynu ugu bishaaraynaynaa qaybtan caawa daahfurkeeda aynu u fadhinno oo mu'asasadu ay noo soo kordhisay oo ah inay noo hirgelisay ama ay noo daahfurtay qismigii markaas waxa weeyaan qiraa'aadka. weliba ay noo keentay culimmada markaa quraada ah ee markaa aadka loo yaqaano, aadna ummaddu ay ugu intifaacday, ardaydana badankoodu ay garanayaan. mid markaas waxa weeyaan ka mid ah asheekh almuqni riyaad cabdijaliil alcabsi xafidahu allahu waracaa, oo noqon doona mas-uulka qaybtaasi markaa gacanta ku qaban doona ee ka howlgeli doona. ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa. mu'asasadana waynu ku ammaanaynaa, waynaynu ugu mahadnaqaynaa horumarka iyo tallaabadaa fiican ee aynu tabaynay ee ay nooga howlgashay ay noo soo kordhisay. aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa. waxaan leenahay wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum. qaybtan qiraa'aadka ah waxau noqon doonaa iminka bilowgeedu iyo barbilowgeedu iyadoo mu'asasaadka ay suurtagal tahay ama hadafkuba iyo ujeeddaduba uu yahay in lagu baahin doono qaybtan markaa ra'iisiga ee daaruliimaan ayaa iminka barbilowgeedu uu noqon doonaa. waxaan markaa uga faa'iidaysanayaa ardaydii markaa labadan maalmood ee iclaamku baxay sida weyn isku markaas sajishay inay markaa si toosa ay u bilaabi doonto wiigan insha allahu tacaala oo ay soo diyaar garoobi doonaan. sheekhina uu nala joogo uu diyaar u yahay.
sidaana markaa uu inoogu bilaabi doonto ardayda kale ee aan weli isa sajilinna sidaasi ayaan fariintaasi ku gaadhsiinayaa toddobaadkan si toosa ayay inoogu bilaabi doontaa sidaasi ayaad markaasi waxa weeyaan aad u ogaan doontaan gelin hore iyo gelin dambe iyo jimco iyo khamiisba qofkii intaa mid ka mid a haleynayaa waa uu helayaa gelinka hore 7 subaxnimo ilaa 12 iyo gelinka dambe oo bacdal casarka ah jimco iyo khamiis oo gelinka hore ah oo loogu talagalay inay maamulayaasha iyo macallimiinta iyo dadka aan haleelka kala haynin maalmaha fasaxa ay ka faa'iideystaan oo ay fursadda u yimaadaan intaba markaas waxa weeyaan waa diyaaro waa la helayaa qofkii markaa u baahan jamcu qiraa'at al-ashr iyo qofkii markaas waxa weeyaan ifraad al-qiraa'atka u baahan iyo qofkii tasxiixu tilaawaha u baahan iyo xifdu al-mutuunki iyo markaa barashadii tajwiidka intaba waa ay koobsanaysaa sheekha ayaana insha allahu tacaala inoo dhigi doona aan ka faa'iidaysan doonaa waxaan leenahay walaalaha aadka iyo aadka u sharafta badan fursaddaasi qiimaha badan aynu ka faa'iidaysanno waalidiintuna fursaddaasi markaasi waxa weeyaan ha soo dhoweeyaan oo aad iyo aad ha uga warhayaan waxaynu aad iyo aad ugu ducaynaynaa sheekha iyo maamulayaasha mu'asasada iyo dhammaan howlgalayaasha ka howlgala dugsiga oo juhdiga iyo dadaalka markaasi waxa weeyaan ay wadaan iyo horumarka aad iyo aad markasta uu inoogu muuqdo baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayran baan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warbixintaa kooban ee qiimaha badan ee uuna siiyey aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay waxaan filayaa hadda idinka iyo barnaamijkii aynu u fadhinay inaad kala dharagteen warbixin waafiya oo qof walba wixii uu tabayay ka kaafidan inaynu hellay baan filayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalkeen ha barakeeyo waqtiga walaalyaal iska kooban waxaan hadda insha allahu tacaala aan u yeedhi doonaa aan kusoo dhaweyn doonaa juhdiga iyo dadaalka iyo dardarta faraha badan leh walaalkeen inooga warramay sheekheennii iyo mu'asiskii inoo suurtogeliyey oo aynu ugu ducaynayno hawsha aadka u culus ee uu dhabarka u ritay si dadkeennu ay uga faa'iidaystaan waxaynu leenahay sheekheena ilaahay subxaanahu wa tacaala adduuniya aakhiraba ha ku barakeeyo miisaanka xasanaadkana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuu saaro ilaahayna subxaanahu wa tacaala khayr hanagaga ka abaalmariyo waxaan hadda soo dhoweyn doonaa الشيخ الوالد شيخ أحمد عبد السلام آدم شيخ أحمد عيد سيسمونه بالكلمة سي إنه يلاحظه ليتفضل الشيخ مشكورا ومأجورا بإذن الله. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى. وقهرين إلهي تبارك وتعالى يا مهدور دم وسقناتي ربك عاوي نو suurtageliyay kulankan qiimaha badan ee guriga Ilaahay ku qabsoomaya Masjid Dar al-Iman. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ما حوجن يحيلدنا ووافجن إلهي توفيق من الله. ما هدنقى إلهي دبدد وحن هدنقيا. شيخنا يوزير كان قالقة الشيخ عبد الرزاق حسين علي الألباني وزيرك دينته يا أوقافته وعمل كستو خيري وأي ندافر إنه كوكا وتاجن وأن كم مقنان حتى هدو سعوتي هاي إنه يمادة وكلن كان إنه وحي جاي مسجد كان نكو قبصومي دوردي هورين وقبناي سفر دعودات دجانا دروكسان سجوا وجوب حي ayuu habeenkii inoo yimid isagoo nasan oo sidiisii u socda waxaan wasiirka leeyahay jazaaka allahu khayra aljazaa wa baaraka allahu fiik dhiirigelintaada iyo kor u qaadista macnawiyaadka dadka dacwada iyo khayrka ku dadaalaya dhiirigelintaadaas iyo macnawiyaadkooda aad kor u qaadayso ayaa runtii shidaal iyo sahay u ah oo ay wax badan ku soconayaan aad baad ugu mahadsan tahay وحكلون سيجارة وقومها نقيا الشيخ الدكتور المقري الشيخ محمد الأهدل
محيي القراءات في بلادنا شيخ محمد الأهدل ورنتي أن آمن سنة هي وحفر بدن إنو النولي علم قراءات كبلد كينا مركوينيد وايو waxaan si dhow ula socdaa oon ogahay maadaama mu'asasaadka tacliimiga ah wax ka mid ah aan maamulo raadka uu ku yeeshay markuu waddanka yimid cilmiga qiraa'aadka sheekha waxaan leeyahay jazaaka allahu khayra aljazaa wa baaraka allahu fiik wa ashkuruka shukran jaziilan cala hadihi aljuhuud aljabbaara التي بذلتها في سبيل خدمة كتاب الله أسأل الله أن يرفع قدرك في هذه الدنيا وفي الأخرى وأن يكتب ذلك في ميزان حسناتك إنه جواد بر كريم رحيم وحكلون مهدنا قيا شيخنا هل كان كهو القليدونة الشيخ المقري شيخ رياض العبسي ورنتي معروف سبنكوا قراءاتك كالدون خبرت إيا أقول دير أوله أسانيد عالية كوهيستا إساقنا وحن ليهي فأهلا وسهلا ومرحبا بك في رحاب مؤسسة دار الإيمان حللت أهلا ونزلت سهلا وانسود وينيا وانن عينيا وحكلوا عن أمهاتنا قيا علماء الدينك يا أضياء شحافة شرفت بدن طلبة العلم يا دائرة صوع مرتي آدبان كل دين إذنكم مهاتنا قيا إذنكم دعينيا ولا ليال انتا كذب قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وحنقصوا هالقبسنا يا هذا الكار ربي يا الله سبحانه وتعالى نبي محمد كويري وحد كتر هذا إلهي ديغ ديس يا رحمة ديسة تاها كفرحان إيدا كخير بدن الدنيا دي أرورسنا يا روح مؤمنك مركي الدين إيا طاعة وصو كرده marka khayr iyo wanaag u soo kordho ayuu aad ugu farxayaa oo sacaado iyo suruur uu dareemayaa waxaan caawa ku faraxsanahay mu'asasada daarul iimaan oo muddada 20 sano ka soo shaqaynaysay qur'aanka kariimka ah iyo kor u qaadistiisa caawana inay marti gelinayso oo aynu u fadhino qayb muhiima oo qaybihii qiraa'aadka qur'aanka ka mid ah oo sheekha riyaad uu inoo daadihin doono nasiibna aynu u helay inaynu caawa daah furro qaybta muhiimka ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan yaqiinsanahay oon rumaysanahay oo shaki iyo madmadow aanu igaga jirin waayo waxaad yaqiinsatay qalbigaaga degaa si sahlan kaagama fuqo marka waxaa yaqiintayda dhabta ah ka mid ah أن هذا القرآن الكريم هو سر نجاح هذه الأمة قرآن كريم إن لقاته سردب الله نقمه وسرت كلية أي كترته أمدا إسلام كوين يقوليسته وأي كرنقته ومد أول كيدي وحي كهر مرتي قرآن كمركي قاتين آخر كيد نوح كهر مريدونا قرآن كمركي قاتان maanta marxaladda ummaddu ay maraysana waxay ku dib dhacday qur-aanka markay ka durkeen cizigoodii soo jiraankaana u soo noqon maayo ilaa bilcawdati ilaa hada alkitaab ilaahay waxau ihi subxaanah laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun waxaanu idiin soo dejinay kitaab sharafkiinna iyo cizigeennu ku jiro ee miyaydaan waxba kala garanayn oo dhibkiinna iyo dheeftiinnu waxa uu ku jiro aydaan kala saaray qofka yaqiinsada ee ictiqaada arrinkaas hadday ubadkiisa noqoto hadday ooridiisa noqoto hadday ummadda islaamka ee kale ka ballaadhan noqoto intaba wuxuu ku dadaalayaa daryeelka qur'aankaas wixii kaleba waa sahal qur'aanka haddii midigta lagu qaato qur'aanku hadduu qalbiga dego qur'aanka haddii madaxa la saaro waxa shaki la'aana diin iyo dunyaba inaad hormarayso bal maanta mujtamaceenna hoos u eeg bal bulshada kugu xeersan hareerahaaga midig iyo bidixba eeg qofka maanta la tirsado ee dadka ka tilmaaman waa ahluddiin waa ahlulqur'aan meel kaleba ha tegi nimankaa quraada ee caaway nala fadhiya iyo quraada la midka ah
iyo qofka maanta qaari'ul qur'aan maca alqiraa'aat sharaftiisa iyo cisigiisu siduu yahay waa qaali lama helo dadka adduunyadu dee waxaad taqaanaan dadkan dhallinyarada kubadaha daawado laacibiinta ayaa la kala iibsadaayo qaaliya oo malaayiin lagu kala gataa waddamada soo maaha waxaa ka qaalisan ka sarreeya ka qiimo badan maanta ninka qaariye saaad ku heshaa way adagta muddaan anuu ku daba jiray inaan qof qaariye helo way igu adkaatay waxaan u jeedaa qof dee qiraa'aadka 10 kala duwan qur-aanka ku hayo u hagar bixi kara ma sahlana carabiya cajamba inaad nin qaariye hesho haddaad heshana waad ku tuntuunsanaysaa marka waxaan rabaa inaan da'yarta dareensiiyo dad baa meel kale u hanqal taagayo oo moodaya wax kale in lagu horumaro laakiin xaqiiqadu waxay tahay horumarka rasmiga ah waxa uu ku jiraa qur-aanka ninka qaata maanta ninka qaari'ul qur'aanka ah maanta ninka qiraa'aadka qaatay waan idiin sheegayaa adduunyadiisana ka warwari maayo waayo lamaba kala helayo aniga idin idhi marka inuu adduun ka warwaraa suurtagalba ma ah isagoo oon ku daalin ayuu halkiisa adduunyada ugu imanaysa dee diinna waxa ugu filan qur-aanka wixii diin ugu mudnaaba inuu qaatay oo laabta uu ku sito haddaba waxaan doonayaa inaad dareentaan da'yarey iyo dhallinyarta qur-aanka ku howlane in qur-aanka si dhaba haddaa u qaadataan inaydaan adduunye ka warwaray malaha maanta da'yarta warwarka iyo mustaqbalka adduunye iyo baddaasaa ku furan laakiin wallaahi inaanu ka warwaray saaxibu lqur'aani alxaqiiqi saaxibulqur'aanka dhabta ah adduun ka warwari maayo aakhirana waaba dadka hoggaankooda iyo hormoodkooga isagaaba calanka u sida haddaba halkanaa horumar ku jira raayada aakhirana adaa dadka u sidaya oo hor soconaya ta adduunyadana adaa hor soconaya oo u sidaya waa haddaad noqoto saaxibulqur'aan dhaba marka dardaarankaygu waxa uu yahay factabiruu yaa uli labsaar qiimaha quraada maanta ku aqoonsada qiimaha uu leeyahay qur'aan waayo maadaama qur'aan qiimo weyn uu leeyahay qofka xambaarsanna maanta qiimo weyn buu leeyahay meel walbana waxa weeyaan waa laga qiimeynayaa haddaad se adoo qur-aankii bartay meel kale u hanqal taagto haddaad adoo qur-aankii haya meel kale aad ku faruur xidhan tahay sirtii qur-aanka iyo karaamadii dhexdiisa taallay ma gaadhaysid manaad fahmin dad badanna way ku dhacdaa sidaas laakiin ninka aamine ee fahme ee qur-aanka hoos u eega adduun iyo aakhiraba ilaahay waa daryeela oo ma dayaco walaalayaal qur-aanka kariimka ah ayaan isu xil saaray inaan u adeegno walidaalik ayaa ballan iyo wacad waxaan rabbigay kula galay inta noloshayda ka hadhay khidmada kitaabka qur-aanka ee kariimka ah hadday tahay tafsiirkiisa iyo macaanidiisa hadday tahay alfaada iyo xuruufta qur-aanka in xifdulqur'aankii qiraa'aadkii tafsiirkii iyo macaanidii loo khidmeeyo oo waxaan anuu dhigi karana aan dhigo wixii kalena ciddii dhigi karta aan keeno waata sababtay caawa qaybta aynu daah furayno ee wasiirkeennu uu xadhigga inooga jari doono ta keentay waa taas ilaahay tabaaraka wa tacaala in fara badan oon la soo koobi karay ayaan ugu mahadnaqayaa wax fara badan oo aynu tamaninay inuu inoo suurtogeliyey oo isagu inoo taabogeliyey waayo rabbi haddaanu kuu suurtogelin taayir kuu rogmi maayo tallaabana qaadi maysa sanadkan u dambeeyey waxaan anuu si gaara isaga xil saaray iyadoo howlaha iyo mashquulka iyo acmaasha dacawigu ay badan tahay haddana si gaara waxaan sanadkan u dambeeyey isaga xil saaray daarul iimaan oo in badan soo shaqaynaysay inaan si gaara kor u qaadisteeda haddana uga howlgalo oo aan wakti ku bixiyo oo hadday noqoto arday mutamayiziin oo cinaayo gaara la siinayo xufaad alqur'aani alkariim ardaydii fansurna cala alqowmi alkaafiriina markay yidhaahdeen dhaqaaqi jiray in la qabto oo la hayo oo qur-aanku ku xasilo iyo hadday tahay qiraa'aadka loo dhigayo kuwa ehelkee u qalma iyo hadday tahay macallimiinta qur-aanka ku xeel dheeree maca alqiraa'aat oo macadka la keeno oo lagu soo kordhiyo intaba si gaaraan isaga xil saaray
inaan waxa weeyaan dadaal iyo dardar cusub geliyo. wax badanna waa inoo suurto galeen, wax badanna waynu sugaynaa. hadafka aynu hiigsananana waa inaan qur-aanka meel sare gaadhsiino, qur-aanka iyo qiraa'aadkiisa. taas waxaan u xusayaa wa amaa binicmati rabbika faxaddis, iyo in laga faa'iidaysto oo lala socdo in dadaal iyo dardar iyo dib u habayn dheeraada aan macaahidda ku samayno iyo mu'asasada guud ahaan, hadday noqoto macallimiin iyo hadday noqoto maamulba. waayo shay walba muddo markuu shaqeeyo haddaan dadaal cusub iyo dib u habayn cusub la gelin, waxaa laga yaabaa in la daalo oo aan halkii la hiigsanayay la gaadhin. markaa si aan futuur iyo daal u dhicin, si wixii hore la gaadhay loo haysto oo aan loo sii dayn, si wax cusub ee la hiigsanayo loo helo oo loo gaadho, ayaan dadaalkaa cusub iyo dardartaa aan u bilownay sanadkan. waxaanan rajaynayaa inaanu ka sii badinno oo halkaa maanta aynu marayno meel ka sarraysana aynu gaadhno. walaalayaal, waxaan kusoo koobayaa kelmaddayda. khidmatu lqur'aani alkariim waa khidmo iyo adeeg ballaadhan oo nin walba kaalinta kaga beegan inuu buuxinayo. wa kullun calaa faqrah, farkaliyo fool ma dhaqdo. mu'asasaadka iyo macaahidda kala duwan nin walba intii alla u qoro iyo inta awooddiisu tahay ayuu ka qaadanayaa oo uu buuxinayaa. waxaanan ku dadaalanaa uun inta karaankaya ah ka mu'asasati daari liimaan inaanu dacwo ahaan iyo qur'aan ahaanba bulshada wixii nagaga beegan inta karaankaya aanu buuxinno oo aanu ku dadaallo. dadweynaha iyaga sharafta badanna intana maqlaysa iyo inta dhawaqa iyagu gaadhi doonabana waxaan ugu bishaaraynaynaa in horumarada cusub ee aanu soo kordhinay aanu sii wadi doonno, iyaguna ay ka faa'iidaystaan oo ay ka fara qabsadaan. intaas waxaan kaga baxayaa uun inaan sii ta'kiidiyo hadalkii akhuuna sheekh nucmaan ujeediye khayr allaha siiyo, iyo inaan naftaydiiyo nafihiinaba ku waaniyo uun muhiimadda ay leedahay waxa weeyaan in mu'asasaadka qur'aaniga kor loo qaado, ehelkeedana loo keeno. intaas unbay iga ahayd, iyo mahadnaq guud oo aan duyuufta iyo madaxdii culimada usoo jeediyo, iyo si guud ahaan mu'asasada daaruliimaan laga bilaabo maalintii la furay oo ahayd waxa weeyaan 2003 ilaa maanta oo ay 20 jirsatay. dadkii kusoo daalayay, kusoo tabcayay, ee hawsha intaa leeg soo waday, ee ninba uu meel soo gaadhsiinayay ku jooga iyo ku maqanba, iyagana si guud iyo si gaaraba inaan ugu mahadnaqo oo aan idhaahdo jazaakum allahu khayra aljazaa wa baaraka allahu fiikum. ilaahay subxaanahu maalinta sabtidee soo socota laga bilaabana sheekhu waa fadhiyaa, waanay bilaabmi doonaan qaybaha kala duwan ee qiraa'aadka iyo culumtiisa wixii ku tacalluqa. qoraalkuna imikaba waa socdaa, maalinta sabtidee soo socotana si rasmi ah ayay inoogu bilaabmi doonaa. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا وآخرا. waxaa insha allahu tacaala aynu kusii socon doonaa kelmadaha aynu siin doonaa culimada martidaynoo ah. waxay nala fadhiya sida aad wada arkaysaan sheekhu lqiraa'aat fi hadihi albalda, sheekh maxamed axmed yaxya alahdal, الشيخ الدكتور المقري. كل عاوز كين بري مايو إن فربضان بينو نقاله ودقينا كسر دعاية. أسأل هذا الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام والجود والإحسان. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى سيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسرني أن أقف بين إخواني من محبي كتاب الله عز وجل وممن يتشرفون بالانتساب إلى هذا الكتاب العظيم كلام رب العالمين في هذه الحفلة المباركة لافتتاح برنامج القراءات العشر بهذه المؤسسة المباركة الطيبة ذات الثمار الواسعة، مؤسسة دار الإيمان. وفق الله القائمين عليها لما يحب ويرضى، وأخذ بأيدينا وأيديهم إلى كل خير، وجعلنا وإياهم
ممن يحمل هم هذا العلم ويحمل راية القرآن خالصة لوجه الله الكريم. أيها الأحبة في الله، ونحن نتحدث عن افتتاح برنامج القراءات العشر، فإنه يحسن بنا أن نقول إن أجل وأفضل العلوم التي يشتغل بها الإنسان هي علوم القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على فضيلة العلم عامة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ولكنه ميز علم القرآن بمزيد من الفضل وبمزيد من الرفعة، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الخيرية العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنها تتوجه إلى هذا الكتاب العظيم تعليما تعلما وتعليما. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وها نحن بين يدي هذا البرنامج الذي يشتمل على هذين الركنين: تعلم وتعليم القرآن الكريم. وهذه الوظيفة تعلم وتعليم القرآن الكريم هي من أجل الوظائف التي اشتغل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل خاطب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وذكر من الأهداف، أو نقول مما بسببه أرسله الله عز وجل إلى الناس هو تلاوة القرآن وتعليمهم كتابه الكريم. فقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تلقي هذا القرآن. وصف الله عز وجل حالة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية حرصه على تعلم القرآن من جبريل عليه السلام عندما كان يتنزل عليه بالوحي. فقال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا فيه إشارة إلى منهجية تلقي القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يردد وراء جبريل عندما يقرأ القرآن ويحرك لسانه كثيرا خشية أن ينسى ما يلقى عليه من القرآن، فوعده الله عز وجل بأنه سيثبته في قلبه وسيبين له معانيه. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلقى القرآن من جبريل عليه السلام كان يتكرر عليه ذلك التلقي، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل في كل عام مرة في رمضان يعارض جبريل مرة واحدة في كل رمضان، وفي العام الذي قبض فيه عارضه مرتين. ثم قام بعد هذا التلقي بتعليم الصحابة، فقد ثبت أن الصحابة كانوا يتلقون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم من تلاواته في الصلوات ومن القراءة عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد تلقيهم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4، فيحث على التلقي من هؤلاء الصحابة الذين تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة تلقى عنهم التابعون، وتلقى عن التابعين تابعوهم، وتسلسل هذا التلقي إلى أن وصل إلى هذا الزمان، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فها نحن بين يدي هذا البرنامج، برنامج القراءات العشر المتواترة. ومن يتأمل هذا المجال يعني هذه المنقبة الكبيرة عندما يصل الإنسان إلى أن يتلو كتاب الله عز وجل بجميع الحروف وجميع القراءات التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أوحيت إليه صلى الله عليه وسلم، فإنها فضيلة عظيمة
طوبى لمن وفقه الله عز وجل إليها. وبين يدي هذا البرنامج فإننا نشير إلى أن هذا المجال لا يتصدى له إلا من كان ذا أهلية كاملة. فنحن نرى أن في مجال الطب مثلا لا يتصدى إلى تطبيب الناس ومعالجتهم إلا من تأهل في جانب الطب، وهكذا في سائر العلوم الدنيوية لا يتصدى الإنسان لوظيفة إلا إذا قد أهل نفسه وتلقى ما يلزمه لتعليم أو لتطبيب أو للقيام بوظيفة ما. ومن أحق ما ينبغي أن يتأهل له هو كتاب الله عز وجل، لأن القرآن الكريم ليس كسائر العلوم، بل يشتمل على ألفاظ أو أداءات دقيقة، ويشتمل على أحكام ومسائل لا يستطيع كل إنسان أن يقوم بها. فلا بد أن يكون المتصدي لهذا العلم ممن وفقه الله عز وجل وتأهل في هذا المجال تأهلا تاما. وإننا لا نزكي على الله عز وجل أحدا، إلا أننا نقول أن هذا البرنامج قد وفق الله عز وجل له شيخا متقنا متأهلا تأهلا تاما عرفناهم بالإتقان وبالحرص وبالتلقي الدقيق كما تلقاه عن شيوخه بالأسانيد العالية الصحيحة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فضيلة الشيخ المقرئ الشيخ رياض عبد الجليل العبسي حفظه الله ووفقه لما يحب ويرضى. فإننا نحث طلبة العلم وطلبة علم القرآن أن يستفيدوا من الشيخ ومن علمه. كم من الناس من يحتاج إلى أن يهاجر ويسافر إلى مكان بعيد لتلقي المشايخ والأخذ عنهم، فها هو الشيخ قد جاء إلى بين أيديكم وأصبح قريب المنال، بإمكان من كان له حرص على التعلم أن يستفيد منه من خلال هذه المؤسسة المباركة التي ما قصرت ولم تأل جهدا في توفير هذا البرنامج وتوفير القائم عليه بحرص وعمل ليل نهار من أجل أن يستفيد منه طلبة العلم وطلبة القرآن الكريم. الشيخ رياض عبد الجليل العبسي ممن عرفنا صدقه وعرفنا حرصه وإتقانه، وإننا لا نزكيه على الله، ولعل الكثير قد عرفه من قبل، ومن لم يعرفه سيعرفه مستقبلا بإذن الله تعالى وسيجد منه الفائدة العظيمة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا ممن يقرأ فيرقى لا ممن يقرأ فيذل ويشقى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. barista dadka la barayo iyo fadliga ay leedahay oo inaga filayay nabi maxamed alayhi salaatu wassalaam uu tilmaamay waxa idinku khayr badan qofka quraanka barta ee dadkana baraya. adilla fara badan oo kale ayuu sheekhu inoo akhriyay. qodobka labaad ee aan jecelahay inaan tanbiihiyo wuxuu yahay sheekhu xafidahu Allah ta'ala waxa iskeen baray sheekheena qiraa'adka inoo dhigi doona oo laga yaabo in badan oo inaga mid inay macrifo u leedahay oo horena Hargeysa gudaheeda uga dhigi jiray cilmiga qiraa'adka iyo tasxiixa labadaba. waxa uu sheekhu inoo tilmaamay inuu yahay qof uu ku og yahay ammaano iyo sidqi iyo itqaan intaba uu ku og yahay, fanniganna uu yahay fannigiisii iyo dadkii ehelka uu ahaa uu ka mid yahay. waxa uu sheekhu hadalkiisa uu ku soo koobay ciddii hore sheekha u taqaanay way taqaanay, ciddii aan hore aqoon ugu ahaynaa hadda ayay aqoon u yeelan doontaa marka ay fannigiisaasi ay arkaan. cilmiga walaalayaal qiraa'aadka iyo barashadiisa qofku laba jeerba aad ayuu u qoomameeyaa inaanu aqoon marka uu arko marka dadka lagu akhriyaayo amaba laga yaabo in lagu tujiyo salaadaha ka mid ah. dad fara badan oo inaga mid ah waxay yidhahdaan qofkani qur-aanka wuu qaldayay iyagoo aan garanaynin inuu qiraa'o kale akhriyayay. waxaa la mid ah oo baahida qiraa'aadka la dareemaa qofku markuu dhex galo cilmiga tafsiirka iyo barashadiisa ee tafsiirku isku kaa badbedelo ee lagu yidhaahdo halkan qiraa'o iblaaya sidaasay akhriday macnaheeduna sidaasuu noqonaya, qiraa'o iblaayana sidaasay akhrido macnaheedu saasuu isku bedelaya, oo mararka qofku uu tamaniyayo inuu cilmiga qiraa'aadka uu aad u dhexgeli lahaa.
وase fursadeedii baynu haysanaa ilaahay kuwii ka faa'iidaysta allah inaga yeelo waxaan tanbiihin lahaa walaalayaal mu'asasada iyo macaahid daari liimaan waxaa laga yaabaa in fara badan inaynu ku naqaano qur-aanka iyo adeegistiisa waxaa sidaas oo kale aan inaga qarsoonayn oo juhdigeeda ka mid ah qaybta cilmiga shareecada oo rag iyo dumarba leh oo dumarkuna ay galabtii bacdalcasarka ay galaan ragguna habeenkii bacdalmaqribka ay dhigtaan oo labadiiba insha allahu tacaala iyaguna diyaar ay noo yihiin sidii horeba aynu uga faa'iidaysanana aynu dib uga faa'iidaysan doonno insha allahu tacaala caawa waa habeen qur'aan waxaan jeclahay bal in yar inaynu ku raaxaysano oo aynu ku nasanno aayaad qur'aanka kariimka ka mid ah oo inoo akhriyi doono walaalaha ka mida mu'asasada iyo macallimiinteeda الشيخ المقري عبد الواسع محمود عبد السلام هرد soo dhawaado سوايات قرآن الكريم كمد إنه مغشيه من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم إنسانك حسناتك إلهي سبحانه وتعالى وصاره إنك إلهي سبحانه وتعالى إنك أنفر عبد الواسع وحكم دي هاي معلمين تعرضيد أخواستا هدا كويسا وأساسنا دار الإيمان صاد وذكرنا إساءنا وحكم دها تلتمياشي قراءاتك طبنك أرقيسا كوغلي ملا وحوها أرضي حلقا كالنت كوباد وقلي ترتن كاسي إلهي سبحانه وتعالى الدنيا أخنبها بركاية إنك إلهي سبحانه وتعالى يساقي يوم أمثاشي سبكوه كفاية يستاء الله نقل وحول لي الهدى إن شاء الله تعالى دي نسو نوين دونتان شيخينا النعاوة وفرنا برنامج كان قراءات كان إن شاء الله تعالى أنه كسوغينا شيخ رياض عبد الجليل العبسي وإن شاء الله تعالى شيخ قراءات كي نولي دونا ينسود وين دونا فليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا بإذن الله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أولا أشكر إخواني الكرام في مؤسسة دار الإيمان على حسن الاستقبال والضيافة والكرم، على رأسهم الشيخ الوالد الكريم الدكتور أحمد عبد السلام حفظه الله تعالى. كما أشكر معالي وزير الأوقاف الشيخ عبد الرزاق الألباني على حضور هذه المناسبة العظيمة، وهذا إن دل فإنما يدل على حرصه ووزارته على الاهتمام بهذا العلم المبارك. كما أشكر جميع الحضور، أولهم شيخنا الشيخ الدكتور محمد الأحدل حفظه الله، وجميع المشايخ والحضور وطلاب العلم، فجزاكم الله خير الجزاء. الوقت قصير جدا، وإن شاء الله أختصر بكلمتين. أولا، علم القراءات من أفضل العلوم وأجلها وأعظمها لارتباطه بكلام الله تعالى، بل القراءات هي كلام الله تعالى، فلا يسأل عن كلام الله هل هو مهم أن نتعلمه أم لا، ولا ينبغي التزهيد في هذا العلم المبارك، خاصة إن كان هذا التزهيد يصدر من أهل العلم وطلاب العلم، فهذا من الخطأ والجهل. فنسمع في بعض الأحيان أن البعض يقول علم القراءات لا فائدة منه، أو هو قليل الفائدة، أو أن علم القراءات يكون في آخر مراحل العلم، وهذا من الخطأ والجهل. وإن كان القائل لا يقصد أن يصرف الناس عن تعليم القرآن أو عن تعلم القرآن. وقد كان السلف الصالح يقضون أوقاتهم في تعلم وتعليم القرآن الكريم بقراءاته. في الصدر الأول لم يكن هناك جمع للقراءات، وإنما كانوا يفردون القراءات على رواية الرواية، والقصص في هذا الباب كثيرة، ومنها قراءة الإمام الحصري القيرواني على الإمام أبي بكر القصري، قرأ عليه القراءات السبع 90 ختمة، 90 ختمة على رواية قرأها في 10 سنين. وأشار إلى ذلك أو ذكر ذلك في منظومته فقال: وأذكر أشياخ الذين قرأتها عليهم فأبدأ بالإمام أبي بكر، قرأت عليه 97 ختمة، بدأت ابن 10 ثم أكملت في 10. بل لم يكتفي بذلك، بعد أن ختم على شيخه 90 ختمة قرأ على مشايخ آخرين، وهذا دليل على حرصهم وانشغالهم بتعلم وتعليم كلام الله عز وجل. لا أطيل عليكم وأكتفي بهذا القدر، وأدعو إخواني الكرام من المعلمين والطلاب بأن يلتحقوا بقسم القراءات، قسم تصحيح التلاوة، وقسم شرح المتون، وبإذن الله تعالى نبدأ في الأسبوع القادم، وننتظركم ونرحب بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warka sheekhuna kollay inteedii fahmaysay way fahmaysayeen. waxaa ku soo ururayay cilmiga qiraa'aadka iyo faa'iidada ay leeyihiin. faa'iidana waxaa ugu filan buu sheekhu ina yidhi inuu yahay kalaamu rabbi alcaalamiin iyo barashadiisa iyo alfaadda qur-aanku sida ay u kala duwan yihiin iyo kelimaadkiisu in lagu baranayo. waxaa sidaas oo kale sheekhu uu ina dareensiiyey siday ahaayeen dadkii salafka ahaa ee hore kuwa ugu dadaala cilmiga qiraa'aadka iyo inaanay fudaydsan jirin barashadiisa. ilaahay baynu weydiisanaynaa kuwii ka faa'iidaysta allah inaga yeelo.
waxaan u geli doonaa hadda oo aan soo dhaweyn doonaa wasiir al-awqaaf sheekhana sheekh cabdirasaaq xuseen cali albani soo dhawaada sheekhu idinkuna ila soo dhaweeya فليتفضل المشكور مشكورا مأجورا بإذن الله. آله وأصحابه أجمعين. أما بعد لما مرت شرفتا سوتني مساجكا مسجد دار الإيمان كسو خيب شيء حفلة أي نقدها فرينو حلقة عصب iyo nashaad cusub oo ka mid ah nashaadaadkii ay waday muasasatu daarul iimaan oo inoo keentay nin caalim ah oo ku takhasusay cilmiga qiraa'aadka si ardadu ay u helaan fursad hor leh in ay bartaan cilmiga qiraa'aadka qur-aanka kariimka ah dhammaan intiina xafladda ka soo qayb gasho waa ku mahadsantihiin waxaana si gaara u salaamayaa sheekheena weyn sheekh axmed cabdisalaam aadam sheekh axmed ciid iyo dhammaan muasasada daarul iimaan maamulkeeda kala duwan oo nagu soo casumay inaanu xafladdan kala soo qayb galno intaa markaan ka imaado cilmiga halkan caawa lagu daahfurayo oo ay joogaan kowkaba min alculamaa oo takhasus u leh cilmiga qiraa'aadka oo shaykha ama dayfka caawa inoo ah martida sheekh riyaad iyo sheekh alahdal oo hore cilmi alqiraa'aadka uga bilaabay waddanka ardadii ka aflaxdayna maanta ay ku baahsan yihiin dhammaan gobollada dalka iyo waddannada dariska inala ah intaba marka hore waan soo dhaweynaynaa culimmada waxaan leenahay soo dhawaada beledkiinni baa timaadeen mar labaadka waxaan leeyahay ardayda caasimadan hargeysa iyo gobollada kaleba inay ka faa'iidaystaan ninkaa sheekha ah ee caalimka ah ee cilmigii loo safri jiray ee loo tegi jiray masar iyo shaam yaman ardulxarameyn maanta ilaahay subxaana wa tacaala uu idinku keenay gurigiinnii cilmiga la yihahdo cilmu lqiraa'aadku waa mid ka mid a culumta uu leeyahay qur-aanka kariimka alimaamu zarkashi kitaabkiisa burhaanka la yidhaahdo waxa uu ka dhigayaa ilaa 740 cilmi oo la barto mid walba gaarkiisa loo barto oo dhammaantood ka hadlaya qur-aanka kariimka alimaamu suyuudina kitaabkiisa la yihahdo alitqaan fi culuum alqur'aan wuxuu ka dhigayaa oo gaadhsiiyey ilaa 80 cilmi oo dhammaantood ku wada abtirsada oo ka hadlaya qur-aanka kariimka ah 80kaa cilmi mid ka mid ah ayaa ah cilmu alqiraa'aat cilmu asbaab الnuzuul cilmu tafsiir cilmu الnaasikh wاlmansuukh de intaasoo cilmi oo kala duwan ayaa qur-aanka ku tacalluqa markaa mid ka mida wey laakiin wuxuu ku jiraa culumta naadirka ah waktigan ee dadka aqoonta u leh ay yar tahay himadeeduna ay soo gaabatay laakiin waxaa jira dad mar walba sabaaqiin lilkhayr ah oo iyagu inaga ridaya fardulkifaayaadka laanna cilmu alqiraa'aadka barashadeedu waa min furuud alkifaayaat waajibaadku wuxuu qaybsamaan waajib cayniya iyo waajib fardulkifaaya ah waajibka cayniga waa waajibka qof walba gaarkiisa ugu waajibay qofna qofka kale aanu mateli karinin oo laga doonayo
واجب فرض الكفاية وهو واجب كهدي ومضى سجود لو واجبيي إذا قام به البعض سقط عن الباقين هذه قيب كم دي أي ستاكتو واجب كاس أي أقمتو أنت كلام مدى دمجي وكذا عايو سلا جنازة أو كلمات كإلا عاصو ولا قبل قابيو ولا كفنو لقيت كذا ولا مايرو ومفروض الكفايات كذلك برشدة علوم تن أو كلا وفروض الكفايات أمان سجود بيوم واجب وطاي برشدة دو أنت فرق كأنك رديسة هي أنا يدور أجر ديراد هليسة إنك أنا هل كي أين نقول لهم ضد آثمين والدنبابي دنبي سلا سوين قد عيها فركا لهم علينا منا وحين أقول ينقلب مرة فرق دني نقدر هديان ده وحين أقول يهم حي قلب بين أقول يهم هي أمان هي الدعاء من الله سبحانه وتعالى يجعل علم هذا أي حفظيان إلهي وقصوا بريست يدنا الله سهله ومن نافعه وكدغه إن شاء الله تعالى وحن كجبابين يا أرضنا إن علم كان أي قادان ووقت كبحيان الجليان وحنا من أسعد الناس تدك حفظة الكتاب راجع حفظيي وأنا سيدة أكتهين قراءاتكم ومذاهب أئمتي وويلي القرآن كاكو تخصصي قابك القرآن كأيو أخري جيرين نطق كيسا هيئات كيسا أيو أخريين يضل غيابا إمام ولما إمام كلاينو كدوية مركا قرادي هو مشهور سرايد هو عام بحسرايد هي أساريد المتواتر كالنقطي أيا ما أنت قراءات كاس أيام مانتا للدرسان أو يقول الريان تضبط قراء هدي لا دورنا طبعا كقراءة الجارسيو إلى آخر كود يسيو أنا أفريت طبعا مركا أنت متواتر القراءات العشرة المتواترة أيام مانتا والحمد لله تعالى جيجينا كهنا قاضي وحنا أرنتاس قوبك وحرا رج نفتو كل دري إن القرآن كدتك بران إلهي سبحانه وتعالى كابال مريو سنة كوجروح وتحية هاي إلى النبي عليه الصلاة والسلام نبي قوم ملك جبريل كورينا هيا ملك جبريل هو قرآن كريم كها وحي هان كسوق هذا عن رب العالمين صحابة المشهورين تا عن كبحدي قراءات قرب أي كلام سدا صحابي جليل كان يراد عثمان بن عفان يا علي بن أبي طالب يا أبو الدرداء يا زيد بن ثابت يا أبو موسى الأشعري يا رجل لمت كأ وحويا علم قد بينه ما أنت ده ينهري الله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صحابي جليل وذكرنا إنسان الخليفة الثالث حدوكتين كتاب القرآن كامر كل الجمعية الأورورية نسخ بوك سميي نسخ ده وحوك على دري آفاق ده يجهوينك أفر مقالو كلا دري بالله إرادا قار الشنبه إرادا قار تدبي جرسية مركا جهوينك أو كلا دري مقالو والبصرة كوفة مكة هي مدينة أفرتاس وعانو والله يقانا بحرين يمن يقولوا وكشران وحوي يقولوا وكمد الشام تضبط المقالو كلا دري والله يرادا تضبط المقالو تضبط المصحف رسم قرآن كبيرة قابك وقرا حركة يردبعها ملحين لما أنا أقول وحلا قريت شر كتاب القرآن آيات كيسة وأن دبعنا لهاي حركنا لهاي شافها تنبالو كلا قادم شر علمي إما جميع المصاحف
مالك يوم الدين أي قوة القرآن دمان تويد مركا تحقيقها هو مالك يوم الدين تقديرها ما احتمالها وحويا مالك يوم الدين لبدا والله أخري كرا علوم تاس مربا قيبة إيمانيسي مركي دنبا قرآن كي إن تنقيط لغو سميو دبع الله سميو مركي دادك عجمتها قرآن كي أخري كروايا فن بها كعب ورمي أو علم الرسم اللي يلاحظه أو علم كأنه منهج كقصة درني من العامدة القرآن الكريم كأ منهج كي وزارة دين دي أوقاف أي سمايسي علم رسم القرآن يعني قصة درني سأرده مركا القرآن كبرنا أيوه نطق أهان وبرته رسمي أهان وبرته قرآن أهان دجال أهان يده أهان لبادي بوبرته لبدا مركا هو إصلاح له أيوه مركا القرآن كيسي للدور يو آخري مركا أرده وينو برج الله حلو برانشري أرده القرآن كانوا برانشري القرآن كا آخر كانوا برانشري لكن ما أنت واحد أركسه إن حافظ القرآن هذا القرآن كوي يسمى لا قارك الخلطاية إن ده القرآن كحفظه ما واحد الله يري فلقت حمل عقبة القربة اللي يلا يمكن بقاف كي راعي فلا هي اقتحم هنا يوكل قرنتها هي وحلقة يا باين ده كله وحبا قدعي صباح مركا قفك دارو القرآن كالرسم جي صبران ونطق جي صبران دي هذا القرآن كي هذا نطق جينا قرنا سو رسم جينا أنا قرنا قاب وقرمي مركا القرآن كي هو كاكل دمية مركا هل كان نجو إيجي نا وزارة إيجي سو ما نحكي معايد من عمل القرآن كان نود تشيني سجال كي كتابها أيها رسم قالوا قرأي مبادئ دي سو وجوه الرئيسة أرض عرب الله بترى إن قف ولي بنا وين يسكت يا وضرة ذكرنا قف كإجازة لما بسيو إلى القرآن كان صدق كما هو ذكره وكعنتي سكو قرأ نطق كان الله صحه مركول بدأس لما يسترى أيوم بار إجازة للسيا كهرو لبسيو لكن يمكن غالبا واحد صحة عربكم على صح مركا waxay idin ka dhargin doona waxaas oo dhan iyo wax ka badanba anigu cilmi qiraa'adka aqoon ma lihi laakiin waxa jooga culimadii walahayd marka iyaga idin ka dhargin doona waynu soo dhaweynaynaa ardaydana waxaan ku gubaabinaynaa meel ay joogaanba inay ka faa'iideystaan waayo sababtoo ah berri ka maalin hadday culimadaas inaga tagaan inagu ma isku soo hadhaynaa cilmigii aynu xambaarnay ayaana inoo baaqi noqonaya waana yowmu qaniima maalin qaniima ah weeye marka nin caalim ku yimaado inaynu ka qaniimaysano oo aynu baranno mu'asasadana mu'asasatu daarul iimaan oo ka mid ah mu'asasadaha ugu weyn geyigeena Somaliland waxa weeyaan runtii wax badan bay gudatay risaaladii ay isu taageen iyo ahdaaftii loo aasaasay wax badan bay xaqiijiyeen goobo badan oo ay ka fureen qaybaheeda kala duwanna waan ka qayb galay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'asasada iyo maamulkeeda iyo sheekheeda intaba allah barakeeyo ardayda quraanka baranaysana ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qiraa'adkaba allah ka dhigo kuwa ka aflaxa daartan daarul iimaan loogu magac daray oo magaceedana quraanka laga soo qaatay waxa weeyaan إلهي سبحانه وتعالى أرضنا أنا كده وقوة أفلحة أجر كذا الله ينسيه أدب ما تنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته